maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague. sababtaan u geynana waxay ahayday 2 jeer dawladda Soomaaliya waxaan isku daynay annaga iyo dawladda Kenya barigaas inaan ka wada hadalno arrinta dacwad intaanay gaarin. 2 jeer ayaa wafdi ballaaran oo wasiirkeennii arrimaha dibadda ee barigaa joogay oo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dawladda federaalka ah iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka qayb galeen shirkaas iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wafdi uu hogaaminayo waa laga wada hadlay 2 jeerba waa la isku noqday mar labaad la isku noqday waa la isla geeni waayay. haddii marka la isla keeni waayay dawladda Soomaaliya door kale option kale u furan ma ahayn oo aan ahayn sida caalamka iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka caalamka ay qabaan in maxaan ku iraahday dacwad la geeyo maxkamadda caalamiga. dawladda Soomaaliya go'aankaas ay qaadatay barigaas sidaas la yeelay dacwadan ka geeyay dawladda Kenya. taasaan rabaa marka macnaheeda inaan mar horena waa ka hadla haddana ku celiyo dacwad inaan ka geeyno macnaheeda annagay Kenya inaan isdagaalsannahay ma ahayn. dacwadaba waxaan u geynay inaanan isdagaalin oo colaadba aanayna dhex marin. annaga Kenya 2 daloo deris aan nahay rabitaankayna deris kuma ahin marka optionka kaliya aan leenahay waxa waaye in aan maxaan ku iraahday aan cilaaqaad fiican iyo deris wanaag fiican inaan lahaano si marka deris wanaaggaas iyo cilaaqaadkaas fiican u jiraan aan u aadnay maxkamadda caalamiga. waa ogtihiin ummadda Soomaaliyeed dhanna way ogtahay maxkamadda keeskeeda intuu taagnaa annaga iyo Kenya wax cilaaqaad xumo ah iyo wax war xumo ah oo dhex maray ma jirin. madaxweynaha Kenya dalkeena soo booqday anigoo markaas barigaas madaxweynuhu jooga dalkaas dhowr mar booqday shirki igadoo markii ugu horeysay maxaa halkan lagu qabtay qadiyado badan oo ama heer gobol leh ama heer caalami ah dawladda Kenya ay nagu garab istaagtay barigaas oo ay dawladda Soomaaliya ugu hiilisay oo ay ku garab istaagtay marka wax cilaaqaad xumaa ma jirin dacwaduna waa taagneed waa socotay. marka horta kayska gaar ahaan guud ahaan taariikhdiisa hore sidaasay ahayd. maxaa jira marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay. 4 sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay 3 jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay. dawladdeenu mar walba waxay noo sheegtaa in ay diidaneyd in dib loo dhigo laakiin wax caddaynayo dawladdeenu in ay diidaneyd marna dawladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin golayaasha muxuu ahay inay la wadaagtay ee sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku iraahday baarlamaankana lama wadaagin laakiin afkana looga sheegaa la yidhi annagu waa diidaneyd. maxkamadduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadayna qodobuu leeyahay qodob hebel loo cuskadaa. markii sidaanoo kale dacwadda dib loo dhigay xeerjajab ay tahayna labada dhinaca inta la isugu yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda maxkamaddu markaas ay tixgelisahay dhinacay u gaartaa. in markii koowaadna codsigii Kenya la aqbalay maxkamaddu aqbasho markii labaadna codsigii Kenya aqbasho markii saddexaadna codsigii Kenya aqbasho. waxaan islahay meeshaas warkaasi sax ma ahan qabaanay haddii uu sax yahayna dawladdu waxay ku dhiira lahayd dadaalkii ay ka gashay inay shacabka la wadaagto u sheegto oo aan ahayn annaga saanaan niri aan ahayn. marka taas waa midaas meesha kale ayadana ay muxuu ahay dhibaatada ka jirto dacwadda waxaa mas'uul ka ahay dad Soomaaliyeed hogaaminayay dacwadda lawyer caalami ah oo Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed oo qiimo badan ah ayaa hogaaminaysay dacwadeena waa la wada yaqaanaa dadku way yaqaanaan wajigeeda iyo muuqaalkeeda iyo keenta Muna Sharma.